mashaariicda kale ee dawladda miisaaniyadda loo qoondeeyay mashaariicda kale ee dawladda ee aan ahayn tahantida raagta sanadka 2022 taasi oo miisaaniyadda guud ka noqonaysa 8.8% waxaana miisaaniyaddii hore aysan ka badan tahay 9.22% waxaana ku cusub biyo ballaarinta magaalooyinka Hargeysa, Cerigabo, Burco sidoo kalena waxa cusub mashruuca horumarinta kalluumaysiga guud ahaan mashaariicda cusub iyo kuwii hore u jiray oo la xoojiyay waxaynu ka tilmaami karnaa mashruuca shaqo qaran mashruuca doorashooyinka mashaariicda caafimaadka iyo waxbarashada ee gobolada Sool iyo Sanaag mashaariicda beeraha mashaariicda xoolaha iyo kalluumaysiga mashaariicda deegaanka iyo daryeelka ugaadha mashaariicda sahaminta macdanta iyo shidaalka mashaariicda hirgelinta e-government samaynta furaha dalku-galka isgaarsiinta iyo hirgelinta xarumaha ICT-ga mashruuca hirgelinta boosaha mashaariicda horumarinta dhalinyarada iyo qabashada koobka liigaga mashaariicda horumarinta wadooyinka iyo madaarada mashruuca horumarinta cisbitaalada dhimirka mashruuca horumarinta biyaha ee Hargeysa, Burco iyo Cerigabo وعشورتي دولة